maayarada golayaasha deegaanka degmooyinka Berbera iyo sidoo kale Gabiley Cabshakuur Maxamed Xasan Cidin iyo sidoo kale Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ay wehelinayaan xildhibaano dhawaan shaaciyay inay ka baxeen xisbiga mucaaradka Ucud ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen kulan ay maanta la yeesheen gudida diiwaangelinta ururada iyo sidoo kale ansixinta asxaabta. saaka waxaa noo yeedhay ururka diiwaangelinta ururada waxay noo dhiibeen warqad dacwad ah oo ay nagu soo dacweeyeen ciidan sharciyadeeda ama nidaamkiisa jirta amba aanu sharci ba ahayn ayna soo dacweeyay xisbiga Ucud oo laga warqabaa xaalkiisa iyo halkuu maray qodobada sharci ee adeegsanayaan ee warqadda ku qoraneen lagu soo ashtakeeyay hal qodobna indhaha laga qarsanayaa hal qodobna indhaha ayaa arkaya halka qodob indhaha laga qarinayaa waxa weeye labada qodob ee soo siyaal xeer foodin uu dhigayo Faysal Cali Waraabe wuxuu sheeganayaa inuu yahay musharaxa xisbiga Ucud sharci alaalay sharci u baneynayo dalkeena u fasaxaya inuu mar kale uu ku soo noqdo oo uu noqdo musharax haba yaraatee ma jiro marka horta waxa weeyaan cid anagana soo dacweysay weyn horta marka hore inay jiritaankooda la hubiyo weeye oo la xaqiijiyo xisbiga dadkii codka ku soo saaray baa iskale qofaan laba dooranin oo aanay bulshadu u codaynin oo aan codkii ummadda sidanin ayaa xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga bursh marinaya marka inagoo raacayna nidaamka iyo shuruucda dalka u taalla iyo jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland waxaanu aqbalnay inaanu ayidno oo aanu waana la dacweyn karaa dacwadda naloo soo gudbiyey aanu akhrino dabeedna aanu ka jawaabno marka intaas weeyaan maanta wixii aan sugu nimi waxaa noo yeedhay gudida diiwaangelinta xisbiyada dalka runtii waxaanu u nimi yeedhisay noo yeedheen yeedhistaasoo salka ku haysa dacwad annaga naga dhana runtii dee mas-uuliyiin baanu nahay rag muwaadiniin aanu nahay waa haaye jirto oo ka mid ah hay-adaha qaranka ee sharcigaa inaanu wixii shuruuca u hoggaansanana dee cidda ugu horreysa baanu nahay marka waxaanu u nimi inaanu u hoggaansanno oo yeedhistooda aanu aqbalno dabadeetana waxa weeye su-aalahan ayna weydiinayaanna aanu sifada sharciga aanu kaga jawaabno sidoo kalena maayarada degmooyinka Berbera iyo sidoo kale Gabiley ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan go'aan kasta oo ka soo baxa gudidaasi iyagoona shaaciyay inay maxkamad la tiigsan doonaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe waxa weeye arrintan ugu dacweynaya inay soo dacweeyay waa qodob sharci asxaabta qaranku dee sharci bay ku samaysantaa qofkuna markuu xisbiga gelaya sharci buu ku galaa isla markaana sharci ayuu kaga baxaa marka taas waa tu sharci hay'adda ay khuseysay baana gacanta ku haysa wixii ka soo baxana waanu ku qanacsanay annagoo waliba adkaynana inaanaan wax sharciyo oo aanu ku gafnay aanu jirin oo doodayadu halkaa tahay marka la yiraahdo sharci cid ku gaftay annagu waxaanu leenahay waxa sharciga ku gafay gudoomiyaha xisbiga oo mar jabiyay oo laba jabiyay oo saddex jabiyay oo afar jabiyay runtii haddii cidi galdaloolo leedahayna cid maanta waxa weeye Faysal ka galdaloolo badani ma jirto musharaxa madaxweynaha xisbiga wuxuu ogol yahay laba jeer labadaa jeer ee uu ogol yahay wuu buray hadda waa markii saddexaad Faysal marayo 50 years uu yahay intuu soo taagay ilaa hadda waxa weeye ninkii ku dhashay baa ku barbaaray inta ka bacdi anagu haddana nahay xildhibaanadii Ucud soo saaray Faysal annaga dacwad u qabna haddana sameeyna dacwadiisa waanu dhigaynaa xisbigana golaha deegaanka ee Ucud ee soo baxay iyo kuwii dhacay labada weelay dhinaca kalena telefishanka caalamiga ee Saab oo wax ka weydiiyay ka bixitaanka xisbiga Ucud ay ka baxeen ay ku eegtay oo kaliya xildhibaanada ka soo baxay Berbera iyo Gabiley oo aynay ku jirin deegaanada kale horta way ka yar khaldan tahay halkan waxa taagan sanaag baa taagan
ibraahim ayaa taagan gabiiley sool baa joogtaa gabiile baa jirtaa wax hargeysaa jirtaa booramaa jira way kaa yar khaldanta halkaan kuu saxo waxa weeyaan dadkan waa dadkii xisbiga abuuray baan odhan karnaa dhaliyey ila xisbiga ucud waa kii saaxada ka baxay waa tii loo ogaa waa dadku codkooda ku soo baxay markay arkeen shuruucdii xisbiga iyo dalkaba u taallay inuu Faysal Waraaba jiray dee dadkan waa dad himilo yahan siyaasadeed leh meesha socdaana garanaya waxaanu go'aansanay inaanan meel madow sii joogine iftiinka raacno qarannimadana badbaadino aan khilaafka lagu mashquuline halka ay ka dhowday aan taageerno cabdirashiid cali barre telefishinka caalamiga ee saab magaalada tan Hargeysa